مسؤولينta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas'uuliyiinta isbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa deeq dawooyin kala wareegay hay'adda Care International oo kamid ah hay'adaha ka howlgala gobolka Togdheer. Munaasabadda dawooyinka lagu kala wareegay oo ka qabsoontay afaafka hore isbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa goobjoog waxa ahaa agaasimaha isbitaalka weyn ee magaalada Burco iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer. Ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay mas'uul ka socday hay'adda Care oo hay'adda dawooyinka gaarsiisay isbitaalka weyn ee magaalada Burco, waxaana faahfaahin ka bixisay dawooyinkan kala duwan ee isbitaalka weyn ee magaalada Burco ay soo gaarsiiyeen, waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta waxa sharafi ah inaan joogno isbitaalkii guud ee magaalada Burco kaasoo aan ku wareejinayno alaab isugu jirta dawooyin iyo qalabka lagu nadiifiyo dhulka dawooyinkaasoo ka kooban antibiotics iyo fuuqacdi wixii dehydrationska lagu sameyn jiray. waxaan rabaa inaan ku wareejiyo insha Allah isuduwi oo dhinacayga taagan gobolka Togdheer Master Aadan Cilmi Diiriye iyo agaasimiye cusbitaalka guud oo isaguna dhinacayga bidix taagan oo ah Dr. Cabdi Soodi. marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad igala wareegtaan. Geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay hay'adda Care oo mahad celiyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Aadan Cilmi Diiriye Aadan Malle iyo sidoo kale agaasimaha isbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Cabdi Soodi Ibrahim, waxaana hadaladoodii kamid ahaa halka ugu mahadnaqaynaa hay'adda Care oo sida arkaysaan maanta isbitaalka guud ee magaalada Burco noogu keentay dawooyinka iyo qalabka kale loo isticmaalayo nadaafadda. runtii waa qalab iyo dawaan u baahnayn haddaan nahay isbitaalka magaalada Burco, marka aad baan uga mahadnaqaynaa hay'adda Care. waliba waa hay'adii koobaad ee noo keenta agab inta leeg inta nimanka xanuunkan shubanka magaalada ka jiray. runtii shubankan magaalada ka jira maaha shuban biyood, dadku waxay isku khaldayaan. waxaad moodaa in reer Burco uu ku sii jiro maskaxdooda shuban biyoodkii ka dilaacay magaaladan 2 sano ka hor. maaha shuban biyood, xanuunkan waxa weeye awal markuu roobku da'o ee duqsigu dilaaco shuban baa la arki jiray, waa kiyuun. wali wax dhimasho ma hayno muddada imka 2 wiig aanu arkaynay dadka xanuunkan uu soo ridayo. runtii xanuunkan magaalada Burco gudaheedu buu ka jiraa, dadku soo ridayaana way sii yaraanayaan. marka in warbaahinta iyo bulshada reer Burco waxaan ugu baaqaynaa inaanay odhan xanuunkan magaalada ka jira waa shuban biyood, maaha shuban biyood. xanuunkaas shuban biyoodkuna waa xanuun khatar ah. sanadkii hore dad badan buu laayay, maanta wax inaga dhintayna ma jirto. qofkana marka dawada yar ee ugu horeysa la siiyo wuu bogsanayaa, saacado gudahood buu isbitaalka ka baxayaa. marka waxa weeyaan waxaan halkan aad iyo aad ugu dadweynaha reer Soomaaliland ama Togdheerba waxaan ku baraarujinaynaa inay nadaafadda ilaaliyaan, qofka laga bilaabo guriga ilaa bulshadaba inay ilaaliyaan. waliba waxaan aad u sii baraarujinaynaa meelaha ay dhibiyada kaamka ah iyo meelaha biyo fadhiistaan yaan aad ugu baraarujinaynaa in laga shaqeeyo. qofka guriga isaga iska bilaabo, farxalka ka bilaabo, ka bilaabo caruurtiisa. cuntada oo qabow yaan la cunin, cuntada intay diirantahay la cuno. waliba jeelasha iyo meelaha boodhanada ah waxaanu aad ugu baraarujinaynaa iskuulada boodhanada ah iyo jeelka oo kale iyo custaalka oo kale cuntaa qabaha cunina, qudaarta la iska maydho. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camar, telefishinka caalamiga ee Somali News, magaalada Burco.